عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي maanta waxaan idin hayaa hadal haynta maalmahan dambe qabsatay dunida ay dhagaxa dhulka ku soo wajahan ee quwaradu ay sheegeen maxaa ka jira arintaas maxaa si kala socota kaga bogo halkan midkan oo ah noocyada dhagaxaanta iyo macdanta ka samaysan ee dhirirkiisu gaaraya 4 kiiloomitir. dhagaxan ayaa la sheegay in 70 iyo 80 dhulka u soo dhawaaday sida ay quwaradu sheegay. haddaba dhagaxan ayaa ah mid xawaarihiisu gaaraya 12 kiiloomitir saacadii. quwaradu ayaa sheegay in ay hawada daawan doonaan 28 abriil laga bilaabo 2 PM halka hijriyadana ay ku beegantahay 15 bisha barakeysan ee Ramadaan. haddaba hay'adda NASA ayaa waxa ay sheegtay musiibo caalami ah waxa keeni kara ay tahay marka wax ka weyn 900 kiiloomitir ay dhulka soo gaaraan, balse Alle ayaa og midda anaguna cilmi uma lihin. si badan ayaa soo wajahday dunida, Alle ayaa soo wax kastoo dhacaya, awoodda Alle ay gacantiisa ku jirtaa. inaguna qadarka Alle ayaan aaminsanahay oo aan rumaysanahay maadaama aynu nahay bulsho muslimiin ah. walaalkayga muslimka ah ama walaashayda muslimadda ah ha aaminin xogaha beenta ah ee had iyo jeer istaba socda, waayo waxaynu nahay dad muslimiin ah. wax walbana diinteena sharafta leh ayaa hore looga cadeeyay kana walwala awda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.